wafti sare uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka dowlad deegaanka Soomaalida Mudane Ibraahim Cusmaan Faarax ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay degmada Yoocaale ee gobolka Jarar. Ujeedada socdaalka ee waftigani ayaa ah sidii loo xoojin lahaa nabadgelyada, xal waarana loogu heli lahaa dhacdooyinkii dhawaan ka dhacay tuulooyinka Dacwaley iyo Duudbeedyaale ee gobolada Jarar iyo Faafan. Intaa kadib, mas'uuliyiintu waxay kulan la qaateen bulshada Yoocaale. madaxweyne ku-xigeenka dowlad deegaanka Soomaalida Mudane Ibraahim Cusmaan Faarax ayaa bulshada kula dardaarmay in la xoojiyo nabadgelyada, diyaar garowga iyo rabitaanka nabadda ee run ahaan noo muujiseen. arrintaayna run ahaan farxad weyn ayayna gelinaysaa. markaa guddi hawshan uun quseeya ayaa jira, guddigaabaa maaragtay baari doona hadduu ilaahay yidhaahdo. dardaarankaygu waxa weeye shaqooyin badan ba hadda inoo qabsoomay. maanta iyo bil ka hor ama 2 bilood ka hor kalsoonida shacabka labada dhanba sidan ma ahayn. hadda waxaad arkaysaa kalsoonidii oo marka ka dambeysa maaragtay wax iska bedelaysa. marka sidaa darteed hawshan waxaa loo baahan yahay nabadgelyada hadda iminka jirta in sidii loo baahnaa loo sii xoojiyo la dhaqan gasho oo la dhammaystiro weliba. dhankooda wasiirka xafiiska madaxweynaha ee dowlad deegaanka Soomaalida Dr. Xuseen Xaashi Qaasim iyo hoggaanka nabadgelyada ee dowlad deegaanka Soomaalida Mudane Cabdiqaadir Rashiid Ducaale ayaa sheegay in bulshadu ay dhaqan u leeyihiin xallinta khilaafaadka ka xukuumad ahaan si cadaalad ah loo wajihi doono. dhulku waa dhulkeen, dadkuna waa isku mid ah, yaan ka shaqaynaynaa sida aad sheegayseen. dadku wada noolaan karaa, mas'uuliyadda ah in cadaalad la helo oo dadka la kala xukmana waan raadinaynaa. guddi uu madaxweyne ku-xigeenku hogaaminayo. marka hawshan xagga dowladda wixii xaggeeda soo jiray waa la samayn, waa lagu dhiiran. go'aanadeeda iyo cadaaladdeeda waa si cadaalad ah loo samayn, si dadka soo dhaweynaysa walaalaynaysa loo samayn hadduu ilaahay yiraahdo. taa marka nabaddaas inaad nala qaataan waan ku faraxsannahay. annaguna intii dowladda laga rabay ee ahayd in ay si cadaalad ah hawshan u wajahdo, u xalliso, halkaana ay u hirgeliso waan ka shaqaynayna hadduu ilaahay yiraahdo. waxaan bogaadinayaa runtii doorkii bulshada reer Yoocaale iyo odayaasha salaadiintu ay u soo dhigeen mabda'ooda ku aadan nabadeynta bulshada degmada Yoocaale iyo Xarshin iyo wixii ka dhacay aagga Duudbeedyaale iyo Dacwaley. filashadannaduna markii hore imaanaynay waxay ahayd odayaasha dhaqanka ee Soomaalida wixii xumaada inay hagaajiyaan. marka fariinta ugu muhiimsanayd ee waxay ahayd ka soo baxday odayaashu inaanan nabadda gorgortan laga gelin. nabadda loo baahan yahay in nabad la helo. taas micnaheedu ma ahan inaan la tibaaxaynin ama la tilmaamaynin wixii khaldan in la sheego ee nabaddu ay ku xidhmayso. hadday soodin tahay iyo haddii tabasho laga qabo habka ay u wada nooshahay bulshadu, in si xadaaradaysan looga wada hadlo oo lagu saxo khaladaadkii jiray. sidaan la soconno 4 bilood ka hor aaggan degmada Yoocaale ay xukunto iyo Xarshin waxaa ka dhacay colaad ku bilaabatay dhul labada dhinacba marka ay sheeganayeen. waxaan ku kalsoonahay odayaasha dhaqanka inay door muhiima ka qaadanayaan wixii halkaa ka dhacay inay nabad ku dhammaadaan. wixii tabasho iyo cabasho ah la qabana ay si nidaamku ogol yahay dadka kala fogeynayn ay u soo dhigan karaan. geestooda odayaasha degmada Yoocaale ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan nabad ka dhex abuuranta bulshada. dadku horta waa walaalo, dadku waa walaalo. annagu nabadda waanu jecelahay, waanu u oomanahay. dowladda waanu jecelahay, nabadgelyada ay keento waanu jecelahay. annaga oo ninna haddii alla ka dhigo noo sheegin baan annagu nabadda ogolayno haddii alla ka dhigo aanu ku tala gashanayn. waftigan uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka dowlad deegaanka Soomaalida Mudane Ibraahim Cusmaan Faarax ayaa intaa kadib si weyn loogu soo dhaweeyay degmada Awaare.